السلام عليكم لما أصحاب شرفت السكسو نقد ونكسب مرة بعد مرة صدحات بكنال كذا قدامنا سوا قدر official فضلنا هذا كنال كوسبت هي سبسكرايب تو حقاقة لايك تنا مقالك صار سو مقالك أصحاب هذا كله وسي قالوا برنامج كينو عاو حكو سابسين أما ودارين معلم بمعلم تقدم بسمرك السوشيال ميديا تكجرتو مرة قدم بيوحدي أركيسها وحكاسي يابيا مكاف جرية إن برنامجكن wuxuu ku saabsan yahay arrinka ku dhacay walaalkeen abtiliibaan ee ku saabsanaa intuu qarash soo galay soo qaban qaabiyay soo qorsheeyay ugu talagalay inuu magaranaysaa gabar guursado ay ooridiisa xalaasha ay noqoto markii loo wada fadhiyay ee meeshii loo soo galgal fadhiistayna nin dee soo diyaariyay aroos soo diyaariyay inuu guriyo magaranaysaa family galeelana lagu yiri magaranaysaa dee gabadha من هرا قبي وكاسا والمكرانسا دادكي أصحابتي أقدوا سدو شيغيو إلما داد قارية دي لحدن قف إني سوى عين وشيغي المكرانسا أرنكو سيدو حوشيران ورتوا حنون قف دان أو سكسو دياري سكسو قرش قريي إنو قوري يقليلو لغو يري قفتي نميداد قرساني سيبا دي والا قبا إن ورتا أرنتان دعضي لبا 10 من كبران كرنا و10 كوبادي هرتا abtiliibaan waxay noqonaysaa horta 10 oo inuu bari ka maalin markuu ficilkan oo kala sameynayo ama uu rabo inuu guriga galeelo inaanu ku degdegin waxyaalaha badan horta 10 bay noqonaysaa waxay kaloo 10 u noqonaysaa dhalinyarta rabta maanta inay guursato 10 bay noqonaysaa inuu qofku markuu qofku uu guursanayo inuu xog wareysto aanu ka wareysan kaliya tunde qofka qabiilka uu yahay aanu eegin une لكن سو إيجو قف كان هيستوريسا إنه دب وبارو مركو سوري مركو يعني حقيقة دبتنا وقاعدنا هدي قف كان وقف وقلمي هي إنه جورسدو هدو من ماذا كو أركان مقرن سعيد دي قف كاس نولا شيشة وبرتاس كوتشوه وحيالها كلي دقنين تا قف ومقرن سان برنامج أنكبرن ضنو فعل هذا ما تدعينا حاول هرتا مركز baraha bulshada Soomaalida marka qof la wadaagto ama xaaskaaga aad la wadaagto ama qof aad guursanayso aad la wadaagto inta badan yani wax wanaagsan kala ma kulmaysid yani wax xun mooyaane wax wanaagsan kala ma kulmaysid laana markuu fiidiyoogii muuqaalka ugu horeysay uu soo duubay abtiliibaan uu leeyahay yani inantan isguursanayna isla markiiba Soomaalidu waxa lagu dhaqaaqay dhaqan xumada waxa sameynaysaa naag magaranaysa meherkii baanu dhicin wad ku dhigdhigaysaa adoo waxyaalo noocaasa ay dadku ka bixinayaan yani ficil noocaas ay dadku ka bixinayaan markii aad guursato ama xaaskaaga aad meel la soo fadhiisatana inta badan baraha bulshada waa lagu caayaya commentiyada aad akhrinaysaa cayba lagu soo qorayaa yani inaad waxaasoo dhan adigu intaas ku soo wada dudubo adoo nimsaga horta inaad waxaasoo dhanba aad isku soo jiido marka horeba ma habbooneen hal mid baa kula habbooneed abtiliibaan markuu arooskaagu dhacayay inaad magaranaysaa dee ama dadka ka qariso hadday tiraado gabadhii waan isguursanay ama dee baraha bulshada qoraal caadi aad kusoo qorto tiraado ama waan xarooday dee jaw lagu kala wada oo saa magaranaysaa dadku qof kastaaba kugu soo hambaleeyo oo waxaanu cayay iyo xagxagashaaba aanay kusoo gaadhin dad badan waxaan arkayay gabadhii hadda ficilkan samaysay cay magaranaysaa intay meel usoo fadhiisteen عاي ومكرانس على ده وح خلدم بيسميسي إيران من قبل ده مكرانس على نيك كله خيانتي أو بلاي أو قرصي ورتو واحد وقت تمرك الكوبات وح كستابه ورتسي وحوشيران إلههم بقو على جاب بتليمان كله تركيشين أنا وح بدن أنا وبين لقي أبا إني ضد وحن وصل شيء يعني مكرانس على ده هندي كبر وأصلا نهار قبل كذا ويد هذا الكذا مكرانس أو آمن واي مركا وح كست حقيقة تسي وحوشيران ورت إلههم بيني بقو qof aad aqoon u lahayn intaad horta meel soo fadhiisatana dee ma caayi kartid qofku waxa weeye waanaad u sheegi kartaa wad waanin kartaa qofku ay horta waxaaba qofku ugu filanba intaad gaadhinba qofkii ay waxaaba ugu filanba yani gabadhan oo la qabo oo xaasa oo dee nin kale guursatay yani ceeb intaasaa magaranaysaye ama ay intaasaa ugu filan ma u baahnid inaad meel soo fadhiisato more energy inaad ku bixiso qofkii aad tiraado magaranaysaa waxaasoo qalad samaysay ama inaad sii aflagaadiso waxaa laga yaabaa inuu dembi kaa dhaco
waxaa laga yaabaa inaad magaranaysaa gabadhaas aanay magaranaysaa been laga sheegay oo adiguna aad ku dambowdo sidii waxu jiraan ilaahun baa og balse laakiin dad waxaa jira ay waxaan run ugu dhaceen qisadanu ay run ugu dhacday oo nin intuu damcay intuu gabadh guursado inay magaranaysaa gabadhii marka dambe dee ay soo baxdo oo la dhaho gabadhan waaba xaasba meher kuma qabto dad ay ku dhacday way jirtaa qisadaas marka wax kastoo dhaca ama wax walbood aragtay cashar baad ka baranaysaa arrinkanna abtiliibaan waxaan dhihi lahaa cashar ha kuu noqdo si beri ka maalin magaranaysaa aada ugu degdegin oo wax walbaba aada uga fiirsato baraha bulshada qof aada la wadaagto ama xiriir aada la samayso jacayl ama magaranaysaa dee mid faamiliba aada la samayso magaranaysaa mid guursateenba horta baraha bulshada in lala wadaago wax qurux badanna maaha wax qurux badanna kalama kulmaysid waxaan daliil ka ahayn mooyaane yani lama kulmaysid dad badan waxaa arkaysaa isqaba oo faamila oo hadda isguursaday oo intay baraha bulshada kuusoo fadhiistaan ku odhanaya maanta waxaan kaaga sheekeyna waxaan idinka sheekeynaynaa yani sidii aan isku baranay waxaa laga yaabaa dadkaas inay muddo yar isqabeen soo fadhiistay meesha koole yani waxaan kaaga sheekeynaynaa sidaan isku baranay iyo maadaa jabba arkayba maxaad ka sheekaysaa qofku markuu goormuu ka sheekeyn karaa xidhiirkiisa isbarashada koowaad wuxuu ka sheekeyn karaa marka qofkii muddo isla nooleedeen dhowr ilmo isku dhasheen dhowr iyo 10 sano isqabteen markaasaad wax badan ka sheekeyn kartaa laakiinse adigoo isku cusub markaad baro bulsho intaad soo fadhiistaan aad tirahdaan yani waxaan ka sheekeynaa sidii aan isku baranay baan idinka sheekeynaynaa xaaskaagaad baraha bulshada lasoo fadhiisatana kole dee aakhirka waxaa weye dee inta badan saad ka aragteen soomaalidu dee inta badan iskuma waaraan wuxun baa laga sheegayaa sida waxaa lagugu soo celcelin aakhirka waxaad arkaysaa labadii qof oo kala tegan afkoodii ku kala furan dadka Soomaalidu sidii u leeyihiin yani way isfureen hebel baa kala tegay hebel kale ama yani adaa daliil lagugu sheegayaa ama waxaa lagu sheegaya qofka xaaskaaga dhalay waxaa laga yaabaa qof kastaaba in buu leeyahay Soomaalida bilaadanka waxaa weye isku abuur maaha waxaa laga yaabaa inaad qofkii inay kaa yara weyn tahay ama inaad magaranaysa adiga yara fool xun tahay aduu xun tahay sida aakhirka lagugu fuqinayo ama wixii loo sheegay inaad marka dambe ku kala tagtaanba oo idinka dhexdiina ay ka dhex bilaabato ceebtaasoo dhan yaa isku soo jiiday haddaa marka hore isqarsan lahaydeen ama ooridaada aduu intaad qarsato dee aduu social media haddaad hore ugu jirtay dee ooridaada qarso social mediaagana soo fadhiiso arrimahaaga faamilkaaga waxaagoo dhan gaara ku ahaadaan barnaamijka intaasoo kusoo koobaya muuqaalka ma rabo inuu igu sii dheeraado marka wassalaamu calaykum